kulan aad u ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen Soomaalida gobolka Minnesota laguna soo dhaweynayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdigiisa ayaa ka dhacday xarunta jaamacadda Minnesota ee cariga Mareykanka. Isu soo baxan ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka tirsan madaxda gobolka Minnesota heerarkooda kala duwan. Madaxda gobolka Minnesota ee halkaasi ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahay duqa magaalada St. Paul Mayor Chris Coleman, Senator Al Franken, Maxamed Xasan oo ku hadlay magaca Soomaalida Minnesota iyo kuwa kale. Thank you. Wow. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Salam alaikum. Wow. Let's say it again. Salam alaikum. Thank you all so much. It's wonderful to be here. It's great to see so many friends here and so many folks here tonight. Sheikh Sharif, it is great to see you again, my friend. And welcome to the great state of Minnesota. I had the great opportunity to meet with Sheikh Sharif one-on-one in my office in Washington this past week. I had many questions for Sheikh Sharif about the political situation, and we had an excellent dialogue. We were frank about some of the challenges that his government faces. The Somali government does not yet have the capacity to address those challenges, but I am more hopeful right now about Somalia than I've been in quite some time. Sheikh Sharif's government has real grassroots support in Somalia, and the international community, as Sheikh Sharif emphasized, wants his government to succeed and has committed to trying to help make that happen. Now, I care about what happens in Somalia for a number of reasons. First of all, Minnesota is home to the largest part of the Somali diaspora in the world. You and the whole Minnesota Somali community are an important part of the fabric of Minnesota's social and civic life. You care deeply about what happens in Somalia, and so do I. And good afternoon, Mr. President, Mr. Prime Minister. We are so thrilled to be hosting you here today in the beautiful cities of Minneapolis and St. Paul. Your presence here gives great joy to the hearts of all our Somali community. In some ways, I'm reminded of those scenes that I remember as a boy, of John Fitzgerald Kennedy traveling back to Ireland, and to see that incredible welcome that he received. I hope that you feel the welcome that you have received here in Minnesota is similar in scale. Thank you. We are so pleased to host you here because, as Senator Franken said, we are the largest Somali community outside of East Africa, and we are proud to be so named. The Somali story in America is an American story. When I sit down with my friends in the Somali community and we exchange those stories, and I tell stories of my grandmother, who came here from Ireland almost 90 years ago to flee a war-torn Ireland for the safety and security of Minnesota. They tell me the same story of how they traveled to Minnesota. And we make that connection as human beings. We make that connection as one people, as one Minnesota, as one Twin Cities.
mudane madaxweyne ma moogin dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya la yiraahdaa waxay ku sugan yihiin iyo sida ay yihiin habeen iyo maalinba inta halka ka soo jeeda ee Ilaahay maskaxda siiyay halka u saaran walwal iyo walbahaar bay ku nool yihiin oo eegayaan leeyihiin where is Somalia la leeyahay maalin iyo habeen Ilaahay kursi buu kugu fariisiyay oo ku yiri adaa madaxweyne ah ee go ahead and lead Somalia mudane madaxweyne haddii la kala qaado adiga oo Shariif Sheekh Axmed iyo kursiga aad ku fadhidid waxa karaamo badan kursiga aad ku fadhidid marka adigoo kursigii ku fadhiya ee karaamadii leh stand up and save Somalia Somaliyay toso isku tiirsaday bakiina taagdaranay taageera waligiine gabagabadii kulankan ayaa madaxweyne Shariif khudbad aad u dheer oo dhinacyo kala duwan taabanaysa u jeediyay dadweynihii isu soo baxay maruu ka hadlayay dagaalada iminka ka socda Soomaaliya ayuu ku sheegay inay u dhaxayaan kooxaha ka soo horjeeda xukuumaddiisa wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin kooxo khaldan hadalladiisana waxaa ka mid ahay waxaa la socotiin hadda in Kismaayo dagaal ka dhacay waxa isdilaaya waa ayagii su'aashu marka waxay tahay yaa muslima yaa sagaala waxaan u malaynaa ama aan hubaaba labaduba inay khaldan yihiin dhammaadkii isu soo baxan ayaa waxaa ii suurta gashay in aan bannaanka hore ee jaamacadda kula kulmo qaar ka tirsan Soomaalidii ka soo qayb gashay isu soo baxan hadalladoodana waxaa ka mid ahay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladda madaxweynaha sharafta leh Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed oo xafladdan igala soo qayb galay dhammaan waxaan leeyahay hambalyo maadaama madaxweynihii halkaan ku aragnay maanta khudbadda madaxweynaha waxaanu arkaa khudbad qiimo iyo qaayo leh oo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Minnesota ugu fadhido wax weyn oo aan la soo koobi karin madaxweynahan shucuurteeda waxay ii muujisay yacni waxyaabo point ah oo la taaban karo oo ka hadlay oo dadkana dhiigooda maaragtay aad u kiciyay dareenkayga caawa farxad iyo wanaag iyo waxa iga muuqata farxad wajigayga laga dareemaya ciid mubaarak baan ayaanu nahay maanta runtii u ciidnay aad baan maanta u ciidnay Sheekh Shariif imaashadiisa aad baan ugu faraxnay maanta dareenkayga aad iyo aad ayuu u kacsan yahay runtii waxa farxad weyn oo aad u qiimo badan oo qaali anoo ah ayadoo maanta madaxweynihii Soomaaliyeed uu yimid gobolka Minnesota Soomaalidii oo dhan aan loo kala harinin malaayiin la isugu soo baxay halkaas oo madaxweynuhu ka jeediyay maaragtay khudbad aad u dheer oo qiimo iyo qaayo leh taas oo aanu maaragtay dhammaanteen maaragtay dadkii 80% ay wada ooyeen khudbadda madaxweynaha maanta waxa iga baxay inuu yahay nin daacad dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu yahay aan aaminsanahay waxaana Ilaahay ka rajaynayaa in kastoo Soomaali oo meel jooga inuu soo khudbada maanta nagu akhriyo ay u fahmaan uguna dadaan uguna garab galaan maanta waxaa aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo xafladdii soo dhoweynta madaxweynaha Soomaaliyeed mudane madaxweyne Shariif Axmed soo dhawow aan ku leenahay maanta zaid ayaan ugu faraxsanahay madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa madaxweyne maxay ahayd khayraadna geliyay sababtoo ah waa madaxweyne dhalinyaro ah awlkii waxaa moodaa in odayaasha powerka iska haysan jireen marka waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa Sheekh Shariif waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in uu noqdo qof mustaqbal u keena Soomaaliya ee aanan burbur u keenin dareenkayda maanta waxaan u arkaa farxad aad iyo aad u ballaaran Ilaahay baa mahad u sugan tahay marka madaxweynaha in anagu kula kulannay America I'm very happy to see the president. I am so happy to actually know that there's a president for Somalia. You know, my country has been without a government for the last 20 years. So it gives me hope that he actually came here and talked to the Somali diaspora. So, Somalia hanolato.
dadkii isugu soo baxay soo dhoweynta madaxweyne shariif ayaa lagu qiyaasay in ay kor u dhaafayaan tiro 5,000 oo qofood waxaana dhammaantooda isugu marxabeynayeen inay la kulmeen madaxweyne shariif cabdulaahi xuseen cabdi macruuf hiiraan online minnesota